waxaa si rasmi ah magaalada Gabiley looga furay garoon kubadda cagta oo casri ah isla markaana nooca la dhigay rooga akhtarka garoonkan Maax Stadium ayaa wuxuu noqonayaa taariikhda gobolka Gabiley markii ugu horeysay laga hirgeliyay garoon baaxad leh oo qaabaysan bulshada gobolka Gabiley gaar ahaan dhalinyarada ayaa soo dhaweysay talaabadan oo sahlaysa gobolka Gabiley inuu hormuud ka noqdo tartanka bilicda gobolada Somaliland garoonkan caalamiga ayaa waxaa maalgeliyay muwaadin reer Gabiley oo door biday inuu gobolka ka hirgeliyo garoon casri ah oo la jaan qaadaya garoonada caalamka waxaana durbadiiba ku ciyaaray ciyaartooyada gobolka kuwaasi oo dareen farxad leh ka muujiyay habdhiska garoonka oo taysan qaabka loo dhigay rooga baaxadda garoonka waxaana ka soo qayb galay furitaanka garoonkan caalamiga ah ee laga yagleelay magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley wasiirka warshadaha Somaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha barsaabka gobolka maayarka degmada xogayaha fulinta dawladda oo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka isku duwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Gabiley iyo dhalinyaro tiro badan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba marti sharaf kale oo tiro badan waxaana ugu horeynba daafur ujeedka garoonkan maayarka magaalada Gabiley Amiin Cumar Cabdi xogayaha fulinta dawladda oo Cabdiraxmaan Nuur Abakar waxayna tilmaameen ahmiyadda dhalinyarada iyo dhismaha jirka uu leeyahay garoonkani habeenada ku xasuusan doona horumarka gobolka Gabiley ka dhacay waxaan caawin joognaa inuu furi doonaa garoonkan quruxda badan leh ay noo furay Cabdiraxiim Maxamed Maax mulkiilaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale u mahad celinaynaa xildhibaan cibaado Maax Cilmi oo iska xil saartay hirgelinta garoonkani keliya kuma soo kordhinayo dhalinyarta iyo fursad ma siinay ciyaaryahanada laakiin wuxuu soo kordhiyey bilic aad iyo aad u wanaagsan oo ku soo kordhiyey degmada Gabiley oo arkaysaa meel istaraatiiji ku yaala dhinacan iyo dhinacan marka laga soo galo magaalada sheeday ka muuqdaan laambadaha ku yaala garoonku runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maanta waa maalin qiimo leh oo maanta Gabiley laga furay garoon casri ah oo la mid ah garoomada laga ciyaaro caalamka oo maanta uu yahay garoonkii labaad ee laga furo mid horena laga furay Gabiley waxay u tahay horumar waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mulkiilaha garoonkan hirgeliyay ee dhisay Cabdiraxiim Maxamed Maax oo leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay mar haddaad xasuusatay inaad dadka dhalinyaradaadii gobolka inaad u dhisto garoon ay kubadda ku ciyaaraan oo casri ah oo ah garoonka ugu badan ee nucaawin dhex taaganahay sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha Somaliland barsaabka gobolka Gabiley ayaa soo dhaweeyay garoonkan caalamiga ah iyagoo ku tilmaamay guul u soo yeetay gobolka kulay Gabiley laba shay way caan ku ah labada shay caan ku ahayd midna waa la yaqaano wada soo bandhigay midna ma inaan soo bandhigin dadka lagu gashay labada shay caan ku tahay waxa ka waxbarashada ay Somaliland waxbarashada laga hadlayo taalimaha ugu qiimaha iyo qaayaha badan ay daayirta tigidhka Gabiley qodobka labaad waxa weeye ciyaaraha gaar ahaan kubadda cagta lacag orodka oo leeyahay fiican kubadda cagta anigu intaan qabsaday waxaan garanayaa in ciyaartooyadu ugu wanaagsan waddanka ka soo jeedaan Gabiley garoonka maanta inay magaalada Gabiley ka hirgeliyaan waa la qabaa aad baan ugu soo dhaweynayaa waanu ku dhiirigelinayaa runtii maaragtay tallaabada wanaagsan ee qaadeen dhinaca horumarka waana sidoo sheegay magaalada waxay kusoo kordhinaysaa horumar waana wax wanaagsan dadka reer Gabiley qaasatan dhalinyarada cuslaatay anigu maanta ka mid ahay inay garoonka oo kale yimaadaan rag badan aan fursad lahayn ayay tan u sahlaysaa maanta inay ciyaaraan oo sportskiiba ay dhinaciisa usoo noqdaan oo exercisekii sameeyaan ugu dambeyntii wasiirka warshadaha Somaliland Shaciib Maxamed Muuse ayaa dareen farxad leh ka muujiyay garoonkan runtii maalin dhaweydun ahayd waqtigii aan ahaa gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley ee aanu dhagax dhigaynay jeeda garoonkan casriga ah oo runtii hawl fara badan ay ka geysatay xildhibaan cibaado Maax Cilmi oo wakiil ka ahayd mulkiilaha garoonka Cabdiraxiim Maxamed Maax oo Gabiley ku soo kordhiyay wax qiimo leh oo la taaban karo maalintaas waxay baan filayaa 5 bilood ka hor maalintii garoonkan aanu dhagax dhignay waxaana si wanaag ah horta inaanu haddana maanta furitaankiisa inaan ka qayb qalo anigoo wasiira shalayna anigoo maayran dhagax dhigay waa wax sharaf iyo karaamo iyo wax weeye wax qabad u soo hiday Gabiley way mulkiilaha garoonkan iyo cid kasta oo fikirkan la lahayd oo ku dhaleysay aad iyo aad runtii mahadsan tahay
si kastaba aatee garoonkan ayaa tooshka ku iftiimiyey horumarka kala gedisan ee ka jaan qaaday gobolka waxaana ammaanteeda mudan shakhsiyaadka diiradda saaray hirgelinta garoonkan oo taariikhdu xusi doonto waa garoon ididiile iyo quruxda ka muuqata ay ku gelin karto dareen dhaba oo ku aadan habka iyo hanaanka ay dhalintu kaga badbaadi karto mukhaadaraadka inta badan halakeeyay dhalinta dalka kuna dhiirin karo isticmaalka dhismaha jirka iyo ka fogaanshaha waxyaabaha lidka ku ah mustaqbalka dhalinta waxaana garoonkan mas'uul ka ah xildhibaan cibaade maax cilmi oo ku suntan taariikhda arrimaha bulshada kana shaqaysa inta badan dardargelinta baahiyaha asaasiga garoonkan maax stadium ayaa saameyn ku yeelan doona kobcinta adeegyada bulshada sida shaqo abuur iyo qurxinta istiraatiijiyadda magaalada Gabiley iyadoo sidoo kale diiraddu ay qabanaysay dhalinyarada gobolka oo ku sii qulqulaysa isla markaana ku rajo weyn inay marun ka ciyaaraan roogaasi akhtarka ah ee ah rooga caalamka oo kale waa Jacfar Awil Herari shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley